بسم الله الرحمن الرحيم. صباح ونكسن qodobada wararka idaacada Risaale dhageystayaal saaka idin haysa waxa ugu waaweyn kulan looga hadlayay xalinta khilaafka ka jira hor u socod la'aanta doorashada Soomaaliya oo xalay ka dhacay Garowe. Booliiska Soomaaliya oo war ka soo saaray ciyaarta kama dambaysta ah ee maanta la filayo inay dhex marto xulalka Galmudug iyo gobolka Banaadir. Madaxweyne Dani oo ka digay in koox gaar ah isku koobto doorashada dalka. Madaxweynaha Hirshabelle oo shaaciyay sababaha uga baaqday shirka ka socda Garowe. faahfaahin ka soo baxaysa dagaal al-shabaab iyo ciidanka dawladda shalay ku dhex maray gobolka Shabeellaha Hoose iyo dawladda Iiraan oo loogu baaqay dejinta in ay bixiso magdhow dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalkaas. subax wanaagsan waa Khamiis 31 bisha 12 sanada 2020 ku soo dhawaada faahfaahinta warkeena subax. kulamo looga hadlayay xalinta khilaafka ka jira hor u socod la'aanta doorashada Soomaaliya oo ay ka qayb galeen siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madax ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa ka dhacay Garowe iyada oo dhinaca kale madaxweynaha Puntland uu ka digay in koox gaar ah ay isku koobto doorashada Soomaaliya. Cabdiqaadir Maxamed ayaa faahfaahinaya. magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal 24 saacadood ee la soo dhaafay waxa ka jiray kulamo gaar ah oo u dhaxeeya madaxda halkaas ku sugan ee isugu jirta mucaarad iyo muxaafid. kulamadaas ayaa intooda badan waxa looga hadlayaa arrimaha ku saabsan doorashada muranka uu ka taagan yahay ee Soomaaliya, waxaana xubnaha halkaas ku kulmay kamid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno kale. waxaana wada hadaladaasi lagu xalinayo khilaafka ka dhashay dhanka muranka doorashada horboodaya madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo shalay shirki ka dhacay magaalada Garowe ama ka furmay ka sheegay inuu bilaabay tabashada xalinta arrimaha la xiriira doorashooyinka. waxaana halkaas ku sugan ay si wada jir ah kaga hadleen arrimaha ku saabsan doorashooyinka iyo si xal looga gaari karo maadaama waqtiga muddada xilhaynta madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo haatan yahay mid gabagaba ah. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo shirka martigelinaya ayaa waxa uu ka digay in koox gaar ah isku kaar yeesho arrimaha la xiriira doorashada Soomaaliya. waxa uu la dalbaday in doorashada ay noqoto mid heshiis lagu yahay sidoo kale la fuliyo heshiiskii doorashada ee horey loo gaaray. heshiiskii 17 September intii gashay oo anigu aan ka mid ahay wili ma arag cid diidan oo heshiiskaas. madaxweyne Xasan Sheekh oo u hadlay musharaxiintana inaan heshiiskaas dhib ka jirin buu tilmaamay. qof dhib ka qaba waa dhici kartaa, laakiin waxaan maleynayaa inta badan inaan heshiiskaas dhib ka jirin. waxa soo baxay habraacyo isaga daftarkiisa doodo way ka imaan karaan, laakiin waxa ku qornaa qodob haddaan khaldanayn inuu jiro la oranayo habraacyadu waxa loo noqonayaa 2016 kii ahaa. marka haddii khaladaad ka yimaado kii 2016 halku yaalaa. marka maxaa dhiman waayo marka waxa dhiman marka waxa weeye in doorashadii haddii heshiiskii la ogol yahay oo baarlamaanku ansixiyay oo habraacyadii waxna qoran yihiin waxna hore loogu soo dhaqmay, waxaa la rabaa maamulka doorashada in hore loo galo oo aysan noqonin in koox siday rabto u maamusho. waxaan anu ka digayaa marka mar walbana waxaa la yidhaahdaa doorasho ama go-aan unilateral oo koox leedahay ama qayb dalka ka ah halis aan laga soo noqon karin bukeed. waxaan ku baaqayaa in la isku soo noqnoqdo ceeb maaha, in la doodana ceeb maaha, in wax la waa la isshaafinaya. qodobada hadda ugu muhiimsan ee taagan magaalada Garowe ayaa la filayaa in sidoo kale ay ka sii socdaan kulamada xalka looga gaarayo arrimaha doorashooyinka. waxaana xusid mudan in dhowr jeer markaasi oo fashilmay jadwal doorasho ay soo saareen guddiga lagu muursan yahay ee doorashooyinka qaranka, iyagoona markaasi u saweeyay in maamul goboleedka qaarkood aysan soo gudbin liiska musharaxiinta u tartamaya xilka aqalka sare. waxaana siyaasiyiin fara badan ay mar walba ka dhigayaan in doorashada Soomaaliya qof gaar ah ee gaar markaasi u gelin doorashada isla markaana loo baahan yahay in si isla wada ogol ah looga wada shaqeeyo. waxaa maanta wada ciyaaraya xulalka Banaadir iyo Galmudug oo isugu soo haray tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. booliiska Soomaaliyeena waxa uu war ka soo saaray kulankaas iyo habka dadweynuhu ay uga qayb galayaan. Aweys Bashiir ayaa faahfaahinaya. waxaa laga baqdin qaba in shaqaaqo iyo foodo ay xarayaan ciyaarta kama dambaysta ee maanta dhexmari doonta Galmudug iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir kadib markii
taageerayaal xareysan ay dhowaan weerareen bas ay saarnaayeen ciyaaryahanno ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya kuwaasi dhaawacyo loo geystay. taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaana digniin ka soo saaray ciyaarta maanta dhici doonta. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa fariin amniga la xiriirta waxa uu diray taageerayaasha xulka Galmudug iyo gobolka Banaadir ee ka qayb galaya daawashada ciyaarta kama dambaysta ee maanta dhexmari doonta gobolka Banaadir iyo Galmudug. waxa uu dhalinyarada daawanaya ciyaartan ugu baaqay in ay ka feejiganaadaan wax walba amniga liddi ku ah isla markaantaasina ay ka qayb qaataan xasilinta ammaanka ayna la shaqeeyaan ciidamada booliska Soomaaliya ku howlan. taliya Xijaar ayaa codsaday in daawadayaasha dhammaantooda si isku mid ay u ilaaliyaan ammaanka iyo xasiloonida ayna muhiimada saaraan in aysan garoonka dhexdiisa iyo banaankiisaba ka dhicin waxa liddi ku ammaanka. dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadweynaha Soomaaliyeed ka codsanaynaa in si deganaansho ah ciyaaraha looga qayb galo, nidaamka loo dhowro, ciidankana gacan la siiyo ciidanka booliiska oo aanu ku amarnay inay gacan siiyaan oo la shaqeeyaan oo daadihiyaan dhalinyarada ciyaaraha u imaanaysa ee tirada badan ee muxuu ahaa farxadda ay ciyaaraha meelo fofog uga imaanaya in si nidaam leh in stadiumka loo galo lana shaqeeyo madaxda iyo booliiska si ujeedadii laga lahaa ciyaaraha loo gaaro oo ahaa in dhalinyarada Soomaaliyeed jir ahaan, maskax ahaan iyo isdhexgal ahaanba inay dhismaan oo ay ka soo baxaan dhalinyaro mustaqbal leh oo dalkooda iyo dadkooda ka fekeraya oo magacooda wuxuu bartay inay ka soo baxaan. sidaas awgeed waa maalin weyn berito, waa maalin final ah. waxaa laga yaabaa dad badan inay isugu yimaadaan oo meelo fog ka imaanaya. sidaa awgeed dadka tirada badan waxaan ka codsanaynaa oo u soo jeedinaynaa inay u hoggaansamaan awaamirta booliiska uu siinayo si nidaam leh inay u galaan. loo adkeeyay garoonka waxaa si weyn loo adkeeyay amniga guud ee garoonka maanta ciyaartan kama dambaysta ka dhici doonta iyada oo la qorsheynayo inay ka qayb galaan taageerayaal aad u fara badan ee u daawasho tagi doona ciyaartan kama dambaysta. magaalada Garowe uu ka socdo shirka ay soo qabanqaabisay ama uu soo qabanqaabiyay macadka Heritage waxaa dadkii lagu casuumay kamid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyadoo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo Hirshabeelle. haddaba sababaha uu uga baaqday madaxweynaha Hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyay. Cali Xasan ayaa ka waramay. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa magaalada caasimada ah ee Jowhar ka daafuray shirka nabadeynta iyo dib u heshiisiinta beelo walaalaha ah oo calaadi ay ka dhexmartay degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha labada gole ee Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed, nabadoonada, culimada diinka iyo aqoon-yahanada beelaha walaalaha ah ee colaad dhexmartay. madaxweynaha ayaa ka codsaday waxgaradka iyo aqoon-yahanada beelaha inay dhexdhexaadiyaan dadka halkaas ku dagaalamay. madaxweynaha ayaa goobta ka sheegay muhiimadda uu shirkan uu leeyahay awgeed inuu uga baaqday shirkii Garowe kaas oo lagu casuumay maadaama ay colaad ka dhex taagan tahay beelaha walaalaha ah ee deegaanada Hirshabeelle. wixii dhacay way dhaceen oo qadar ay ku dhaceen, laakiin waxaa la rabaa inaan ka qowmamayno. walaalay waxaad ogtihiin waxa dhiigga ku daatay, naf iyo maal dad badan oo jecelnahay ayaan ku weynay deegaankaas, naf iyo maal aan ku weynay, mana jirto wax sababa oo inooga dhimanayeen. waxaan ku filannahay aheeday gurigaaga dab haysto waxaad qaba karta ma jiraan, waa inaad gurigaaga dab ka haysta dimisa horta. waa lagu casuumay shirka Garowe, Soomaaliya isugu tagaysay, waqtiga lagu jiro waad ogtiin xilli kala guura waaye, masiirkii Soomaaliya looga hadlayo meesha. waan baajiyay mana aadin, waxaan u aadi waayana waxay aheeday gogoshaan daraadeed. maxaan Soomaaliya la qaybsadaa gurigayga dab haystaa talaana jeedi karin wax fikir aan la barkay gadaashaada qayla ka yeeri gurigaaga dab haystaa dhibaatana deegaankaaga ka taagan tahay. bulshada lama jiri kartid, waxna lama qaybsan kartid. dhibaato badan ka taagan Hirshabeelle. haddii ilaahay raalli ka noqdana waa naga go'an tahay inaan dib u heshiisiinta ka shaqeyno oo culibay tahay. waxaan danaynayno oo mar waliba gowluhu dhigaynana dadkayna inay nabadgelyo ku noolaadaan aan rabnaa.
dadkaynu inuuna dhiigooda daadanaan rabnaa dadkaynu waxay isu ahaa jireen iyagoo isu walaal isjecela inay wada noolaadanaan rabnaa idinna waan hubaa intaas waad garatiin colaad beeleedkan ayaa kusoo laalaabatay degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaana muddo fog ay soo taagneyd colaadaasi loo waaya xal waara. dowladda iiraan ayaa la sheegay in qoysaskii ay 176 qof kaga dhimatay diyaaradii rakaabka ahayd ee ciidamadeeda ay soo rideen in qofkiiba ay siiso magdhow gaaraysa $150,000. Ukraine ayaa ku baaqday inuu dhaco wada hadal ku aadan magdhowga dhibanayaasha la siinayo iyo xubnihii weerarkaasi ka dambeeyay sidii cadaaladda loo marin lahaa. diyaarad rakaab ah oo nooceedu uu yahay Boeing 737-800 oo ay lahayd shirkadda diyaaradaha caalamiga ah ee Ukraine ayaa 2 gantaal lagu dhuftay waxyar kadib markii ay ka soo duushay magaalada Tehran. Iran oo markii hore diiday inay qirato mas'uuliyadda diyaaradda gantaalka lagu dhuftay ayaa ugu dambeyntii ogolaatay waxayna sheegtay in diyaaradda rakaabka ee ay lahayd shirkadda diyaaradaha caalamiga ah ee Ukraine si aan ula kac ahayn loo soo riday. dadka diyaaradda ay Iran soo rida saarnaa ayaa isugu jiray 82 muwaadin oo u dhashay Iran, 63 u dhalatay waddanka Canada, 11 Ukraine u dhashay oo ay shaqaalaha diyaaradda ka mid ahaayeen iyo 4 u dhashay waddanka Afghanistan, 4 kale oo u dhashay waddanka Baritonis iyo 3 u dhalatay waddanka Germany. ciidamada ilaalada hawada ee dalka Iran ayaa xilligaasi heegan ku jiray saacad ka hor xilligii ay diyaaradda soo dhaceysay. Iran waxay gantaalada balaastikada ku garaacday 2 saldhig oo ku yaala gudaha waddanka Ciraaq iyada oo duqeymahaasi u geysatay si ay uga aarsato General Qasim al-Suleymani oo u dhashay Iran oo ay diyaaradaha Mareykanka ku dileen magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq.